Kani waa Sharma Boy oo lagu bartay mikrofoonka iyo muusiga. Maanta waxa uu ku hubaysan yahay qori AK-47 sida laga dheehan karo muuqaal laga soo duubay isagoo ku dhex jira dhowr askari oo ku sugan xayndaabka garoonka diyaaradaha Garowe. Arrintan yaabka leh ayaa timi kadib markii fanaaniinta jiilka cusub ay ku kala qaybsameen bandhig faneedyo munaasabadii ciida lagu qabanayay magaalada Muqdisho. Waxaana qarxay dagaal dhanka baraha bulshada ah kaasi oo u dhaxeeyay Sharma Boy iyo Daahir Calasow. Daahir Calasow ayaa sheegay inuu hawada ka saarayo YouTube-ka Sharma Boy isagoo ka careysan heesta fanka anaa farmaajo ka ah oo uu ku luuqeeyo Sharma Boy. Sheekadu markan ma taagna 2000 waa liindhanaan 1000 shilin kabsar caleen 5000 shiid ku keen caawa cajiinka anaa ka qasa. Waxaan arkaynaa Sharma Boy oo gurxamaya sida aar falaar lagu ganay. Muuqaal uu ka soo duubay caasimadda Puntland ee Garowe ayuu ku sheegay inuu yahay Puntlander dhaba oo deegaankiisii cagaha dhigay waxna aan u reeban doonin Daahir Calasow. Weli jawaab lagama hayo Daahir Calasow oo sheegay inuu yahay nin IT-ga ku takhasusay cidii ka hor timaadana uu hawada ka saari doono YouTube-yadooda. Balse Sharma Boy intuusan u duulin Garowe waxa uu hiil adag iyo garab istaag ka helay Shiina Culay iyo Kabtan Ayuub oo kamid ah afku xooglayaasha baraha bulshada codkooda wax badan ka gooyo. Sharma Boy daayarka looga dambeeyo raabka ayaa dhoolatus iyo booloxoofto aan horay looga baran xoog badan oo aan horay looga baran la soo shirtagay waana ashqaraarka xilligan lagu wareersan yahay. waad ku mahadsan tahay daawashada warbixintan. Like saar oo ku xirnow bogga Maxamed Muuse Tarsan siina faafi muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibada.